sidaa darteed mudana gudoomiye iyo wafdiga dhammaan sharafta leh wax qiimo noo ah maanta inaad nagu soo booqataan xafiiskayagii ugu weynaa degmada Boorama gobolka Awdal xafiiskan taariikh ahaan horena waan wax sheekaynay imika ahaana xafiiskan waa xafiiskii lagu yeelay ama lagu taagay calanka xisbiga maalintii u horeysay xafiiskan waa xafiiska dhaliyay guusha xisbiga inuu ku noqdo macaan ururku inuu ku noqdo xisbi waa xafiiska dhaliyay weeyaan waa xafiiska taariikhiga waxaan xusi karaa xisbiyada kale ee macna tartamayno ee gobolka degani xafiiskii shanaad bay marayaan anagu laakiin waa xafiiskii koobaad ee aan ku furno maalintii horeysay calanka la keenay waa xafiiskii labaad waa xafiiskii macna ahaan ku bilownay diiwaangelinta maalintii la diiwaangelinay 2000 qof waa xafiiskii aan ku diiwaangelinay 5000 qof hadda waxa yaala xafiiskan buuggii lagu diiwaangeliyay dadka tirada inta leeg iyo kaarashii dadka markaa lambaradooda aan ku qorinay ayaa yaalay maalintii diiwaangelinta socotay waa maalintii tirinta ay socotay ee la tirinayo xisbiyada waa xafiiskii aan ku guuleysanay inaan ku noqono urur waa xafiiskii aan ku guuleysanay inaan ku noqono xisbi waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysano xukuumadana inagoo xafiiskeena joogna inuu xafiiskan noqdo ka dhaliya ee miraha dhaliya gobolka Awdal iyo degmada Booramaba kii aan ku guuleysan lahayn xukuumadda talada dalka aan ku qaban lahayn insha Allah sidaa darteed mudana ku soo dhawow gudoomiye iyo musharax madaxweyne ku-xigeen iyo musharax madaxweyneba iyo dhammaan wafdiga qaaliga xafiiskii xaruntii gobolka Awdal xafiiskan wuxuu isugu jira laba qaybood wuxuu ku wada shaqeeyaa xarunta weyn ee gobolka saasoo kale waxa ku shaqeynayay xarunta labaad ee degmadiya saasoo kale xafiiska kala saddexaad oo kale isna ku shaqeynaya oo garabkii haweenka intaba xafiiskana ka kooban hadda muuqaalka guud waxaad moodaa inuu xafiisku yar yahay laakiin shaqada xafiiska ka socota way ka badan tahay xafiiska waana farxad waxa noo ah waxaana farxad weyn noo amaanta oon ka tagi laanahay xafiiskii guusha inta lagaan ku helay anagoo rajo weyn ku qabnayna maanta dib uga guurnana waan ka tagi laanahay waxaan ku bishaaraynaa xafiiskaana ku dhamaysan doono in talada dalkan qabano markaan talada dalka qabanana sida ururada kale ama xisbiyada kale xidhmayne oo furnaan doona xafiiskan insha Allah dadweynahana waan ugu shaqeyn doonaa